mahadsanid Cabdullaahi Daayir Wacays. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Daawadayaal iminkii haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinteena ciyaaraha ee warka telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV oo habeen walba idin soo gudbiyo anigoo ah Abubakar Farxaan Abubakar Abka. Qodobada aynu ku soo qaadan doono xubinteena ciyaaraha ee warka TV-ga Rayo waxaa kamid ah wali waxa garoonka Muumin Dollar ee bartamaha magaalada Boorama si absamiyo uga socda koobka Rabadaanta oo sanad walba loo qabto meheradaha ku kala yaala magaalada Boorama kooxo ku kala ciyaaraya waxa galabta fooda istaray labada kooxood ee ku kala ciyaarayay magacyada Adal Nootayo iyo shirkadda biyaha ee Shifo waxaana ay ciyaartu ku bilaabantay weeraro halis ah oo ay isku qaadiyeen labada kooxood oo ay ku doonayeen inay goolal ku kala dhaliyaan isla marhaantaana sidaasi saddexda dhibacood u kala qaataan balse gebi ahaanba qaybtii hore ciyaartu waxay ku soo gabagabowday eber iyo eber ay staafi waayeen labada kooxood ee ku kala ciyaarayay magacyada Adal Nootayo iyo shirkadda biyaha ee Shifo markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaartu waxa halkii ka sii socday weerarada kala duwan ee labada kooxood ku doonayaan inay ku kala badiyaan ama goolal ku kala dhaliyaan asayeeshee qaybtii dambe ciyaartu waxay ku soo gabagabowday gebi ahaanba 2-2 ay labada kooxood ismari waayeen isla marhaantaana ay sinaayeen wali waxaynu ku guda jiraa daawadayaal ciyaaraha ka socda garoonka Muumin Dollar ee bartamaha magaalada Boorame waxa iyaguna ciyaartii dambe fooda istaray labada kooxood ee ku kala ciyaarayay magacyada Hotel Race iyo kooxda kale ku ciyaaraysa meherada Saara Sacad balse markay ciyaartu socotay qaybtii hore wax yar waxa dhacay daawadayaal intaana waxa inoogu idil xubinteena ciyaaraha ee warka telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV oo idin socodsiinayay Abubakar Abka intaynu xubinta xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu Ramadaan Kariim.